wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xeyndaabka ciyaaraha oo goorahan oo kale aad ka daawataan khamiis kasta goobjoog TV xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. Todobaad kasta waxaan idiin soo gudbinaa wararkii ugu waaweyn ee sportska iyo wixii taagan todobaadkaas. Saala socotaan baa todobaadkii la soo dhaafay waxaan idiin soo tibinaynay wararkii ugu waaweyn ee ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxaana hadda la soo gaaray heerkiisa gabagabada waxaana finalka iskugu soo baxay kooxaha kubadda cagta Jubbaland iyo soo kale kooxda kubadda cagta Puntland iyagoo sanadkii labaad xiriir soo gaaray. haddaba kooxahan sidee u soo ciyaareen sidee ku soo gaareen finalka ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo soo kale gobolka Banaadir. waa sidee goolinta tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada yaa hogaaminaya meeqa ciyaartoy ayaa ku dagaalamaysa kala sareynta goolinta tartanka ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada gobolka Banaadir. intaan barnaamijka ku jirno soo kale waxaad daawan doontaan haddii alla idmo qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo ka hadlay ciyaarta adag ee u dhaxaysa kooxaha kubadda cagta Jubbaland iyo soo kale kooxda Puntland oo ah ciyaarta kama dambaysta. intuu barnaamijku socdo haddii ay idmo waxaan la socodsiinaya anigu Maxamed Xuseen Qanile. xindaabka todobaadkan waxaa marti ku ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Abdiraxmaan Majacase iyo soo kale gudoomiyaha xiriirka kubadda sportska Jubbada Hoose Aadan Sanka. marka hore soo dhawaada. waa ku dhownahay waana in ka mahadcelinayna fursadan qaaliga ah nasiiseen aad ay u mahadsan yihiin Mustafa iyo soo kale Aadan Sanka waan ku soo laaban doonaa. marka hore soo dhawaada daawadayaal. markale isarag wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan saala socotaan baa waxa heer gabagaba soo gaaray ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo sanadkii labaad oo xiriir lagu qabanayo magaalada Muqdisho. waxaana sanadkii labaad xiriir final soo gaaray kooxaha matalaya maamul goboleedyada Jubbaland iyo soo kale kooxda kubadda cagta ee Puntland oo iyada sanadkii la soo dhaafay koobkan hanatay. haddaba kooxda kubadda cagta Puntland waxay wareegga afar dhamaadka mise kulankii sama finalka la ciyaartay kooxda kubadda cagta gobolka Banaadir iyagoo ka badisay oo ay ugu badiyeen hal gool iyo eber. waxaana goolka ugu mahadcelinayaan maamulka xiriirka kubadda cagta Puntland iyo soo kale ciyaartoydii taageerayaasha laacib Yacquub Cusmaan Maxamuud oo sanadkii labaad xiriir gool ka dhalinaya ee gobolka Banaadir. ciyaarta kadib ayaa goobjoog waxaa la hadlay qaar ka mid ah ciyaartooyda iyagoo dareenkooda ka dhiibtay. kooxda kubadda cagta Puntland ayaa u soo baxday finalka ciyaaraha kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waa sanadkii labaad ay soo gaaraysa finalka iyadoo sanadkii hore ka qaaday koobkan kooxda kubadda cagta Jubbaland. waana ka xumaa guuldarada maanta soo gaartay. waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay nasiibkeena intuu soo gaarsiiyay halaan ka badanna macnaha ma u maleynayo inay noo qorneed wixii noo qornayna waa qaadanay walaalaheen Puntland wixii u qornay way qaateen waa meel fiican u rajeenaya ciyaaryaashu waa maasan yihiin waqtigooda aad ku qiimo baan noo soo horeen ciyaartooyda dhammaan waa maasan yihiin waa ciyaar wanaagsan ciyaareen balankeenu wuxuu ahaa in ciyaar wanaag ciyaarno. kooxaha gobolka Banaadir iyo Puntland ayaa wada ciyaaray kulanka koowaad ee afar dhamaadka ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. kulankan waxaa dheeshar lagu kala maray barbaro gool la'aan ah laakiin markii la isku soo laabtay kooxda kubadda cagta Puntland ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay waxaana goolka u dhaliyay ciyaaryahan Yacquub Cusmaan Maxamuud oo weerarka ugu ciyaara. waana sanadkii labaad oo xiriir gool ka dhalinayo gobolka Banaadir. ciyaarta ayaa sidaas ku soo dhamaatay waxaana finalka u gudbay kooxda xafidanaysa tartankan ee dowlad goboleedka Puntland. kooxda ilaahay waa xamdinaqaynaa oo noo suurtageliyay inaan final nimaano maanta dadaal dheer iyo kubadda wanaagsan soo bandhignay. waxaan kaloo mahadcelinayaa tiimka naga soo jeedo kubadda fiican soo bandhigay. sida tiim hadda ka hortimaadid caqabadeeda way leedahay gool waa dhalin karaa gool ma dhalin karid waa badin karaa waa naga badin karaa. kubadda cagta ayaa saasa waxaan u mahadcelinayaa mar labaad tiimkii taageerayay. ciyaarta kadib waxaan la hadalnay qaar ka mid ah ciyaartooyda iyo sidoo arkaan inay u soo gudbaan sanadkii labaad oo xiriir finalka ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. kulay sanadkii hore iyo sanadka isku mid maaha. sanadkii hore koobku wuxuu ahaa tartan oo bilow ah. sanadkaana maamul goboleedyada kale iyo kulli way soo bedeleen wal soo dhisay kulli nin walba tabartiisa cidna kama marami karto laakiin alxamdulillah kulanka xigan waxaan rajeynayaa inuu ilaahay guulna siiyo. ciyaaryaashayda inta ila joogto inta iga maqanba insha Allah waxaan leeyahay guul mar walba haddii alla idmo mar walba garabkiina joogna idinkana taageernimadiina mar walba nagama maqna qalbiga ayaa naga taageeraysiin annaga kubadda ciyaareen laakiin idinka dareenkiina naga badan. waxaan garoonka Banaadir kula kulannay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Puntland isagoo ka hadlay dareenkiisa iyo sida uu arko in kooxdiisa ay u soo baxdo finalka. ciyaaraha natiijadooda ilaahay qoray kooxdu waxa weey natiijadeeda haddii koobkana loo qoray waa qaadanay wala noqonay haddii koox kale loo qorayna waa qaadanaysa. waxaan ku rajeynayaa annagu ciyaartooygu juhdi badan soo gelinay oo tababar xoog la soo siinay muddo noo xiriisnaayeen in maanta
cayaarba cayaartii ka agtay kooxda awoodda leh khibradeeda la soo baxda marka waxaan filayaa maanta khibradda cayaartooyga iyo macalinkiisa lagu guuleystay iyo wacyigelin badan aan soo sameynay Yacquub waa noobaha Puntland gobolka Banaadir aniga waxa waay xaqiiqdii xilligii koobka naga soo qaaday ciyaari gobolada Soomaaliya 2010 gobolka Bari baan gudoomiyaha watay maanta waxa waay waxaan filayaa inaan mataqaanaa waqtigeedii ay maalinba nin bay siinaysaa maanta waana siisay saaxiibada iyo shacabka gobolka Banaadir oo u mahadcelinayna sida wanaagsan noo soo dhaweeyeen سيد أركيسين با عيارتويدا كوحدة كبدا عقد بودلان أو جول مين كجار ليجودا جول كبنادر أو أحمر تجلياشة ترتن كبدا عقد مع من جوال ده يجول كبنادر يجو جول كجاري سوينا يقود جوال دجين عيارتويدا مركي يجوش كجارين مركي أي عيارتويدا حاضرين إن فين لك جارين وحاسين لو جود جوال دجين دجانا ده معمول كبودلان وحنسود ويقار كمية لأن هذا كنا دجانا بودلان جارهان مجال الجروي عند عمرنا نسير لو جود جوال دجين عيار waxaan horta waa iska ciyaartuna waxa weeyaan waa xarash iyo madax waa baqtiyaa nasiib hadii baqtiyaa nasiib tahayna waxa weeyaan dhalinyaro aad iyo aad u firfircoon oo Puntland ka socota ayaa Banaadir FIFA Puntland insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan koobka mar labaad ka soo dhigno wargeeya سيد أركيسين ودول دقوين أو كده عادي جنده بودلان جرحان مجال الجروي أو إسكو صباح الدليل ده يسوق لماموين كالكاس كنول إيجو سود ويجوش مهم كاي كوحدة ذاك جرت عيارك وبدأ عقد مامون قبل ده يجو كوحدة دفاع عنه يترتن كان أنسود ويجودون مصطفى مركور السود هو جوبجوج مر بدن شاشة ولا جد عوده لكن ما أنت مرتاح كنت حندك مركور السود هو كورن دجاجة بودلان سيد لو سود ويجوش مهم كجرتين عيارة مامون قبل ده بسم الله الرحمن الرحيم وهرين waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta iyo kuwa Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tan labaad waxaan ilaahay mahad u mahadcelinayaa TV-ga Goobjoog iyo Qalinle oo ah nin dhalinyaro oo xaqiiqdii aad ula socodsiiya bulshada Soomaaliyeed ciyaaraha dalka gudaha ka jira oo xoogga saara kuwa dalka way kuwa dibadda waa la yaqaana dadkoodu waa aan dhaqaale haystaan laakiin kuwa dalka barto dhalinyaradiina ay sportiga lagu jahayay si ay sportiga qayb wax ka noqdo qofka caafimaadkiisa nabadgelyada iyo isdhexgalkii markaan u soo laabto Puntland xaqiiqdii si weyn baa loogu soo dhaweeyay waana gool dadku ay wada sugayeen bay ahayd maadaama ay ahayn championkii isteedada Puntland ay diyaargarow xoog loo soo gashay inay difaacato koobkii ay hore uga qaaday dhigeeda Jubaland sanadkii hore la soo dhaafay ciyaartooyga xulka badda cagta Puntland iyo macallimiintooda iyo wasaaradda iyo xiriirka kubadda cagta Puntland iyo ganacsatada reer Puntland si weyn baa markan loo soo diyaarshay muddo 3 bilood ay xiriisnaayeen waqtigaas oo train la siinayay galab iyo subax marka waxaan jeclahay qofka sidiisaba bulshadiisa wax u qabta waxa fiican in mar walba la xuso iyo doorkii ka qaateen dhiirigelinta dhalinyarada waxaan rabaa in halkan ilaahay mahad looga mahadceliyo Dahabshiil Group iyo Samtel iyo Dhuuban oo madax commercialka Puntland oo qayb weyn ka ah in xulka Puntland dhiirigeliyaan ganacsade Axmed Jawle oo nin dhalinyaro reer Puntland ah oo iskala Jawle Group oo isagu lahaa hoygii la deganaa garoonka lagu diyaar garoobay isagana uu mahadcelina sida wanaagsan uga qayb qaatay hadii jeer uu garab taagan ilaa imkan oo dhiirigelin uu la daba socdo xulka badda cagta Puntland waxaan mahadcelinayaa xalku Ismaaciil Cabdullaahi Sheekh Nuur oo isagu ah nin Puntland laf dhawr waa dhinaca sportigeeda oo xaqiiqda door weyn ka qaata ورنيو سبورت isaga carwada qalabka sportiga keenta Puntland waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Nugaal oo haddana safarka nagula socda oo xaqiiqdii door weyn ku lahaa xereynta xulka badda cagta Puntland wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo agaasimaha Tigaane iyo xiriirka badda xubnihiisa Joolay Cabdirashiid iyo sidoo kale Saciid Cabdi Xasan oo waxaynta gudoomiyaha oo xaqiiqdii kaalin weyn ka qaatay dhiirigelintii iyo qabanqaabadii xereynta xulka badda cagta Puntland shaqas kastoo la soo qabto waqti baa la soo galiyaa juhdi baa la soo galiyaa dadkeedana waa la xusaa waxaan si gaar ah halka ugu mahadcelinayaa taageerayaasha iyo macallimiinta Puntland oo kooxaha heer koowaad iyagu leelinayay
ciyaartooygan laga soo xushay waayo shaqo fiican ay soo qabteen ciyaartooy wanaagsan bay soo saareen oo shaashadaha ummadda Soomaaliyeed aad u jeclaystaan macallimiinta sagaalka kooxood ee Puntland waanu mahadcelinaynaa maadaama ciyaartooygan kilaabiska Puntland laga soo xulay taasi waxay tahay qofku wuxuu shaqada soo qabto inaa xusto ay bulshadiisuna ay ogaadaan marka waa u mahadcelinaynaa sagaalka kooxood macallimiintooda iyo mulkiilayaasha kooxaha ku dhiiraday in horyaalka kubadda cagta Puntland geliyo koox walbana ugu yaraan 10 kun oo kharash ku bixeen safar dhaadheerna ay u kala baxayeen oo 1500 oo masaafa ay marayeen sidoo kale dhammaan shacabka gobolada sagaalka gobol ee Puntland ku dhaqan waa ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay mar walba niyadda iyo qalbiga ay nagala jiraan iyo sida ay noogu soo ducaynayaan marka insha Allah waxaan rabaa inaan u soo laabto caasimadda ee Muqdisho nimi si wanaagsan aan ku soo dhaweeyay wasiiradda dhalinyarada ciyaaraha federaalka Marwo Khadiijo iyo xildhibaanada iyo golaha aqalka wasiirada Puntland oo ay ka soo jeedo dowladda federaalka oo si weyn ugu soo dhaweeyay boodka iyo gobolka Banaadir waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa shacabweynaha gobolka Banaadir oo iyagu si weyn noo soo dhaweeyay taageero xoog leh aan ka sameeyay sanadkii hore ciyaaraha ka qayb galanay kooxduna markay ciyaar wanaagsan tahay waxa weeye qofka ciyaartu uu ku raacay waayo caalamka aragtay dhalinyarada kooxay kala taageeraan marka kolley marka la fiirsho kooxii ka ciyaaray horyaalka waxaan kooxda isku xirkeeda dhinaca kubadda dhulka taala ugu fiicnayd marka aad aan ugu mahadcelinayaa shacabweynaha gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyaha sportiga iyo kooxdina la ciyaaraysay sidoo kale shacabkii daawanay garoonka aad dareemayso shacab aad u soo xoog weyn in garoonka soo buuxiyeen muujiyeen wanaag iyo walaaltinimo iyo soo dhaweyn ciyaartuna ay ciyaar faayir baleeyo oo si qurux badan oo ku dhamaatay wax khaladana una ka dhicin marka xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeedna waan xuseynaa sida ay u garsoorayaan oo farsamada uga shaqeynayaan sanadkii labaad aad ka qayb galeysaan idinka ayaa kooxda difaacanaya ma aaminsanideen inaad final ka soo gaareysaan iyagoo la ogyahay kooxda inay ka maqan dhowr ciyaartooy oo qayb ka yahay Golahi Guuleed iyo Faarax iyo kabtan Lidio dhaawac kaga maqan ciyaartooy kale ma aaminsanideen ciyaartooydaas doorka muhiim ku lahaa safka kooxda Puntland inay koobka final ka soo gaarayso mar labaad xiriir حقيقي وقتي هوري ديار جروجي ويرا طبعا عشان كسو ديار جرومي سي دق كوب كاس لو أبابلي وانا دريم كذا عيال قروح بدنا أي صوب النجان هلو كبد عقد بنتلان سنة كمان وقت وهاي سنة هوريال كبد عقد بنتلان سجال كوحات كقريب قالين ومدلح بدل السعوني لاب ولا تاني شن عيارتي كقريب قالين الدريم كده سيدا لوسو كله حلو دونه وايو ترتمر هي لقبته حدقة عصب وناكسن باقي صوب حياة غير ان عبد السلام iyo سعيد يوسف iyo كولا iyo guuleed waxay xubnaad muhiima laakiin xaqiiqdii tababarkan socday dhaaway soo gaaray ay tartanka qaybna wadanka way ka baxday laakiin boosaskoodii waa la soo buuxiyay waan filaynay waan ku jiifnay inaanu finalka imaanayno way anagu ku kalsoon awoodayda ciyaareed iyo farsamada iyo macallimiinta oo aad ugu mahadcelinayo macallin Maxamed Ciiro iyo macallin Maxamed Cabdalla iyo Jabra وجهدي بدن قليل لأن يرى إن أي متقنا أي كلسان لنا عفر سماذا يتكيسجا يحيل الدبر. سنك سلو مثلا ما أمي سنة إن داعي صوف إن سنة كل هذا حرة إيمان سنة كي يبدلن فين. أدب ما صنتها إن TV جوب إن جوب أو على بإنت بدن إسكت حلوجيا إنه هرمر جارسي سبورتسكا يصاحب كي مصطفى أو ما أنت هل كان عوض فدينه. run ahaantii sportisku saadaashu inta badan dadku marna way saxan marna way qaldaan laakiin xaqiiqdii inta badan anagu mar walba waxaan sheegaynay inaan Puntland iyo anaga isku soo aadeyno anagoo wada ciyaarin oo liigu uusan bilaamin yaan sheegnay ama baxeenay habeenkii aan ku soo dheelmanay Banaadir waxaan ciyaarahan waxaan isku soo aadaya si sanadkii dambe oo kale Puntland iyo Jubbaland sababtoo ah in waxaan saan u leenahay waxa weeye sanadkii hore dadku ma diyaarsaneen si gabagaba ahaan buu ka ciyaaro u bilowdeen dhalinyaradu si fudud baa lagu soo aruuriyay laakiin sanadkan uu ka duwan yahay sanadkii hore macnaha maamul goboleed walbaba wuxuu la yimid intiisa u dambeysay uu soo diyaar garoobay si uu macnaha meel fiican uga gaaro haduusan koobka qaadin marka waxaan filaynaa in ciyaartan Jubbaland iyo Puntland oo horena soo wada ciyaareen ciyaartii u dambeysay sanadkii tagay halkay ku kala hareen nasiibkeeda in qaadatay Puntland laakiin sanadkan waa isla haysanaa calafkuna waa meeshiisa marka waxaan leenahay insha Allah in ciyaar fiican baan soo bandhigi doonaa ciyaartooy fiican tayo way wataan annaguna ku tayo baan wadanaa laakiin akhlaaqda iyo nidaamka iyo heerka kubadda cagtana
si fiican baan u dhowri doonaa waayahay waa la arki doonaa fardada isku haya laskuma faanshan lahay kooxda kubadda cagta Jubbaland waxay ka badisay kulankii afardhamaadka dhigeeda Koonfur Galbeed oo markii ugu horeysay taariikhda soo gaartay afardhamaadka ciyaaraha maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir ciyaarta kadib kooxda Jubbaland si weyn ay ugu dabaaldegtay garoonka Banaadir Stadium iyo soo kale magaalada Kismaayo marka hore aan ka hormarno garoonka Banaadir iyo jawiga markii ay soo baxeen kooxda kubadda cagta Jubbaland ayaa iska xaadiisay finalka ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir Koonfur Galbeed iyo soo kale Jubbaland ayaa ciyaaray kulankii labaad ee ciyaaraha semifinalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana qaybta relegation lagu kala maray hal gool iyo eber ay ka hor kacayaan wiilasha kooxda Jubbaland markii la isku soo laabtay qaybta labaad labada koox ayaa sameeyay bandhig wanaagsan waxaana goolka labaad u dhaliyay ciyaaryahan Muuse oo labada gool ka dhaliyay shabaq ilaaliyaha Koonfur Galbeed ciyaaryahan Dheere Xaaji Dheere ciyaarta ayaa sidaas ku soo dhamaatay oo laba gool iyo eber ayay guush raacday wiilasha kooxda kubadda cagta Jubbaland iyagoo finalka kula biiray kooxdii sanadka hore ee la ciyaareen Puntland aan rajaynaa koobkan inaan ku guuleysano sanadka hore waxaan ka gaarnay koobkan finalka waan laga qaaday balse sanadkan waxaan rabnaa inaan qaadno aan ka dejino magaalada Kismaayo shankeyga waxaan micnaheedu ku jiro inaan koobta dahabka aan ku guuleysto koobka iyo koobta dahabka inaan isla qaato rabaa duulaan gaarsiin insha Allah labada beelbarka magaalada Kismaayo aan taageerayaasheeda hadii aan uga dhigaan rabaa magaalada Jubbaland Puntland waa isbarno waa isnaqaanaa waa saaxiibadeena sanadka horena micnee koobka xoog iyo baawar noogama qaadin nasiib bay nooga qaaday kolba sanadkana nasiibka xagga Ilaahu jira Ilaahay xaqiisan ka sugaynaa balse anaga hamigeena iyo rajadana waxay tahay inaan ku guuleysano insha Allah sanadkii la soo dhaafay sidoo kale waxa garoonka Banaadir finalka ku wada hardamay kooxaha kubadda cagta Puntland iyo soo kale kooxda kubadda cagta Jubbaland waa sanad kale oo xiiso leh waxaana la sugayaa kooxda loo caleemay saar la ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir inay burhaantii maroodiyaasha dib u soo laabato وانا aad baan u faraxsanahay tiiman xaqiiqdii aan rabnay inaan mar final isku imaano oo waqtigii hore naga qaaday koobkii inaan isku imaano waxaan xaqiiqdii aad ugu mahad celinayaa ciyaartoyda Jubbaland oo difaaca iyo weerar iyo dhax intaba aad u jeeday awood sare inay leeyihiin aad baan u faraxsan xaqiiqdii waana waxdii qofka taageeraha ama qofka tiimku taageeraya markuu arka awood inay leeyihiin haddana awoodooda ay muujinayaan dadka hortiisa waa wax aad loogu dhiiran karo wada jeeday Puntland game-kay dheelaysay wareegii koowaad arkaysay baraajo ku soo baxday labadii game-ba kii shalay wada arkaysay soo shalay u ahaa game-koodii awoodooda tiim wada arkaysay ama ha noqoto difaac ama weerar ha noqoto anagu tiimkan Jubbaland ahaan waan dhisanay awood aan tiim hadda aan isleenahay weyne dhigmi lahaa Banaadir baa ka jirta Banaadirna waa hartay marka malihi calaf waa meesha laakiin tiim awood kula mid ah ayaa u soo baxay ama koor jooga malihi tobraha kooxda kubadda cagta Jubbaland macna qaliinda ayaa ka hadlay dareenkiisa isagoo u mahad celiyay ciyaartoydiisa doorka wacan ay sanadkan soo bandhigeen ciyaaraha maamul goboleedyada ciyaar wanaag ayaa koob lagu qaadaa runtiina labada ciyaar u dambeysay waxaan soo bandhignay ciyaar aad iyo aad ay dadku ama uga sheekeeyaan ama magaalada uga sheekeyso inkastoo tii Banaadir aan la dhelnay ee nala ka badiyay ayna ka tabar yareen sanadkii horena maalin ay ahayd maantana maalin waaye sanadkii horena ciyaarta sanadkan la dheelayo ciyaarihii sanadkii hore way ka duwan yihiin runtii yacni gobollada oo isa soo dhisay guushu waxay raacdaa qofkii ciyaar wanaag aniga waxaan aaminsanahay ciyaartoydeeda inay balooni fiican dheeli doonto guushana baloonigay raaci doontaa ciyaarta kadib waxaan la hadalnay qaar ka mid ah ciyaartoyda labada dhinac si ay u arkaan inay wada ciyaaraan kulanka labaad ee afardhamaadka ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maadaama baloon fiican bandhig fiican soo dhignay oo guushana Jubbaland ay raacday maadaama si fiican aan ka hadlo waxaan isleeyahay yani sidaan si fiican soo adkeyn doona insha Allah sanadka dambe taageerayaasha ciyaartoyda way u jeedeen baloonisha oo soo bandhignay waxaan leenahay sidaan si fiican insha Allah waan dadaalinaa waxaan u gudbay finalka u gudbay لما نسوق كوكر درينكيga waxaan bal u diray reer Jubbaland meel ka soo kulmiyay dhamaantooda waxaan leeyahay hambalyo siibka ay caawiyaa taaganaad sababtoo ah inaan Puntland mar labaad aan kula kulmo garoonkan aad baan u filay rajadaan qabo taageerayaasha dalidood meesha joogaan waxaan leeyahay hambalyo farxadna la qaybsada ku soo dhawaada koobka waxaan keenaa insha Allah Kismaayo markii labaad aan final imaanay goonis waan ku faraxsanahay aad tookada hore horta laga qaado koobkii nasiib daro laakiin sanadka waxaan rajaynayaa insha Allah inaan Jubbaland geeyo kamil iska yeelay wallahi iska yeelay sanadka Jubbaland waa insha Allah finalka waa imaanay Koonfur Galbeedna 2-0 uga badinay fariintan galabta aad dirnana dad badan ay taawan doontaa insha Allah waxaan rajaynaynaa koobka inaan qaadno barxadii Olimbiya ana laga sugay reer Jubbaland ee Kismaayoodka waxa la hambalyo koobka waa qaadi doonaa Kismaayo keen doonaa oo ku dabaaldegi doonaa ciyaartoyda sanadkan waxa laga keenay saddexda gobol oo Jubbaland ay ka tirsantaa laga keenay ciyaartoy badan meel badan ka keenay ciyaartoy talent inoo ah aad u wanaagsan waa ka soo tagnay nasiibkoodan u yeelan ciyaartoy badan waa keensanay ma sha Allah maalintii koowaad waana laga badiyay dawladana saana in laga badiyo koobkana finaalkana ay maanay ciyaartoyda hogaaminay fariin wax loo diray ma fariintooda waxooda way wataan habeen walba fariina loo soo diraa marka koobka laga sugaya wax kale laga sugaya ciyaartii ugu horeysay waa isla qabsan waynay laakiin macallimiinta oo shaxda bedeshay iyo dhamaan isku duubnideena iyo dadaalkiina faraha badan maanta meeshan ku soo gaarnay
كل وان ujeedana maanta Bruniga soo bandhignay Bruni lisdii karma waa Bruni koowaad ee maalinta koowaad garoonka ku soo galayeen marka waxa leena taageerayaasha niyada khayr u sheega insha Allah koobkan anaga iska leh waxa aad uga mahad celinaya dhamaan taageerayaasha Jubbaland meel kasta ay joogan qaasatan kuwa garoonka saaran zaid kana isbirid garanay waxaan ku hanweynaa insha Allah koobkan saa ku qaadan leen maadaama sanadkii laban final ah tagna sanadka hore noogala qaaday rigor sanadkan waxaan rajaynaynaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo niyadina inay ku jirto ina koobka inta qaadano kala degno maamul goboleedka Jubbaland insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo sida arkaysiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah ciyaartooyda kooxda Jubbaland iyo soo koonfur galbeed oo ka hadlay ciyaarta kadib inkastoo ciyaartooyda kooxda Jubbaland ay soo dhaweeyeen in markii labaad oo xiriir afeenka la ciyaaraan ee dhigooda Puntland ciyaarta kadib magaalada Kismaayo isoo kale deegaanada Jubbaland waxaa si weyn loo soo dhaweeyay guusha weyn ay soo hoyeen ciyaartooyda mataleysa maamulka Jubbaland aan daawano qaar ka mid ah dhalinyarada oo la hadlay goobjoog hambalyo mudiyasha aad baan u hambaleynayaa waxaan rajaynaynaa koobkeen la keenay Kismaayo ducadeena iyo niyadeena iyo dadaalkeena Ilaahay uu nagu guuleeyay waxaa sanadkii hore finalka nimid laakiin sanadkan koobka waa Kismaayo insha Allah موزة موزة أنا وفرح سناي إن جبلان أي يقول قارتو بدلان إلقا قوانين دونا كوبك أرجال كيني دونا موزة هي أنا بجد أحسن عن درين كي لما سو كوبي كرو ما دام إنك استوى عن كبدين الدول إنك استوى عن كبدين بكونفور قلبت ما تسمعي أد بلوغ من بحياة ضدك شعوب طوبي كحسينين وحن أورجينا يا جبلان إن كوب كي قادك اسمعي إلا يفهموا إلا يدوبي إن كنتو قول جبلان قد بفرح سناي تايرات جبلان وعم شيء يعني إنه كوب اسمعي معنا يو daawadayaal wili waxaa daawanaysaan barnaamijka xindaabka ciyaaraha wuxuu idinkaga imaanayaa Goobjoog TV xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho warbixinaas aad daawateen waxay ku saabsaneyd labada koox ay soo gaaray finalka iyo sida loogu dabaaldegay maamulada ay ka imaadeen Jubbaland iyo soo kale maamulka Puntland Mustafa marka fiiriso labada koox awoodooda iyo sida u soo baxeen iyo guusha weyn ay ka gaareen hadda finalka markay soo gaareen waa mahadsantahay horta kubadda cagta sideedaba waa cadaani madow natiijo kastaan xag ilaahay ka qoranta koox baa arkaysa aad u ciyaar wanaagsan oo koox ka awood yar ay ka badinayso xaqiiqdii markaan fiiriyo Puntland kulamo adag iyo group adag aan ku dhex jirnay waxaa Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxa la mooday inay xaqiiqdii marka physical ahaan inay ka xoog waaweynayeen ciyaartooyga aan wadanay laakiin farsamo ahaan aan ka fiicnayn ciyaartii Hirshabeelle waxay ahayd ciyaartii noogu adkeyd aan soo karno أنا لفتي هذا وحما دينا فرسم تشكيلة أنا ياخذنا عن كلن كذبات عن كل صحني كيس الدحان وكوح المركز أي خبرات لي هذا هاي كبدأ عكتنا وحي وبعنتها مركز تا إن لقسم يو ولا تشي يو عيارتي لسوق هذا الضوضاء ميلا خراسات كيمي عن سكسحنو إذا أنا عيارتي لبعدان يعني صحني تي سين فينا الكنا أنا لدينا إن كوح دي هوم كهيدا مرتد الله أنا دريم إن يغيران لا تاني شنفنا وقفني قرون كوجرتو أنا أقول الناس هدنا وحن عيارني عيار كدون عياري هره وحن بدني إني دشوت هذا
goolka xaggiisa ay gaaraan taasina aanay ahayd isku xirkii kooxda difaaceeda weerarkeeda iyo dhexdeeda taasina ay noo sahashay inaanu guul ka gaarno gobolka banaadir oo xaqiiqdii shacabkiisa mar labaad aan u mahadcelinayo markii la soo qaado magaca maamul goboleed iyo hadda gobolka banaadir ciyaarihii labada sano soo dhaafay waxaa loo saadaaliyay 3 koox Jubbaland Puntland iyo gobolka banaadir maxay taas ku timaada isleedahay xaqiiqdii waxay ku timaadaa marka la fiirsho gobolada isteedada way kala population badan yihiin meel tartamaan ka qabsooma meesha hadduu tartan ka qabsoomo ciyaartoy baa ka soo baxaya Puntland waa 9 gobol ciyaaro gobolada laga qabtaa kuwa iskuulaad baa laga qabtaa kuwa wax laga qabtaa heerka koowaad kuwaasi waxay fududeeyeen ugu yaraan 7 ciyaaro gobol baa la qabtay marka waxaad dareemaysaa in dhalinyaradii kubadii ay jeclaanayso laakiin hadda waxaan filayaa in ay ka duwan tahay oo qofku meel higsada oo helayo haddii ma taqaanaa si fair ah oo cadaalad ku jirto loo xulo dhalinyarada gobolada ka timi oo isteedada ka socotay oo xaqiiqdii oo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya maadaama kubadda cagta dalka mas'uul ka yihiin ay dhalinyarada skillskooda xirfadooda aad u sareyso gobol kasta ka yimaadee gobol kasta badnaaday in waqti iyo chance la siiyo si ay u sii jeclaadaan laakiin qofka hadduu isteedka iskaga ekaado waxay noqonaysaa halka ay kubadda isku ekaato laakiin meeshii lagu arki lahaa waa qarankiisa marka waa ciyaar taasna waxaan leeyahay xiriirka iyo wasaaraddu inay iyagoo gud u saaray macallimiina in kulli la arki doono cid ay soo gudbiyaan laakiin waxaan xaqiiqsanaynaa markaan aragno ciyaartoydii gobolka raba ahaade waa aad baan u soo dhaweynaynaa oo shaashada caalamka aan iska arkaya markaan u soo laabto Jubbaland xaqiiqdii waa koox ka ciyaar duwan kooxii kale oo kubad garanaysa annaga wax noo wanaagsan koox markii ciyaar taqaano laakiin koox markii xoog kula ciyaarayso way kala duwan tahay dhaawacyo badan iyo dhib badan bay ku geysanaysaa laakiin kooxdu kubad markay garanayso koox walba farsamadeeda iyo khibradeeda kubadeed iyo soo dhiibashadeeda bay ka ciyaaraysaa Jubbaland sanadkii hore final isku nimi ciyaar adag baan dhamartay oo 120 daqiiqo la isla gaaray xaqiiqdii penalty baan kaga badinay taasina waxa ahaa calaf waxaan u mahadcelinaa Ilaahay mahad iska leh in keenay maanta finalka aan rajaynayna insha Allah inaan ciyaartaasina guul insha Allah ka gaari doono cidii Ilaahay u qorayna way helaysaa laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan dadaalno aan guul ka gaarno marka Jubbaland waa magaalo kubadda cagta taariikh leh xilligii hore laakiin systemkii way isbedelay dowladda dhexe Soomaaliya meesha ka baxday waxa yimi in goboladii dadka u kala ahdaan taasi waxay sababtay Puntland inay muddo 19 sano ah ay ka jirtay nabadgelyo wax colaada maadaama gobolada kale ay dib ka dhaceen laakiin iyada ay nabadgelyo iyo horumar waxba ka sameeysay dhinacii waxbarashada dhinacii caafimaadka dhinacii sportiga saad ogtahayna 2010kii Puntland waxay casuntay ciyaari gobolada 15 gobol oo Soomaaliya 20 sano kadib dhalinyaradoodu isugu timi Garowe tartan qurux badan ciyaartoy tiro badan ay ka soo qayb galeen aan dareemino Jubbaland xilligaas aan gobolka bari baan aan hogaaminayay waxaan filayaa bari semifinal aan isku aragnay Jubbaland 3-1 baan uga badinay waxaana xusid mudan Aamin Xasan Daahir oo hadda Jarmalka jooga oo markaa 10kii gobolka bari ahaa oo isagoo goolkii ugu degdegmana ka dhaliyay tartankii gobolada Soomaaliya intuu dhacayay oo sikina yar ku dhashay xaqiiqdii inta hadda ku jirnay halkan aad noola soo xiriirayay oo dadku aad u daawanayay marka sida bulshada u gaarsiiseen daldaloolada baa lagu sheegay oo dadka aad noola soo taliyay marka Jubbaland waa koox weyn kubadda ku fiicnayd xilliyadii hore laakiin waxaan qabaa aniga in xilliyadii hore la iskala soo gudbayo dejowgu isbedelay dadkii ma taqaana waagii hore xilligii hore gobolada xagga waxa la oran jiray ma example gobolka bari oo Boosaaso ka timo soo badbaastirey laakiin systemkii waa isbedelay dowladda dhexe meesha ka baxday waxa dadka Soomaaliyeed oo dhan bay isugu tagay Puntland halkaasna waxa ka bilowday 93 tartan ciyaareedkii ugu horeeyay in laga qabto oo kooxaha sidii kubadii ku socotay si wanaagsan lagu gaaray marka Jubbaland xaqiiqda waa koox adag magac leh laakiin magacii waa la isku haystaa aadan sanka ma ka fiirso horna oo saadarsay in Jubbaland final ka gaarayaan maxaa is leedahay kulanka la ciyaaraysan Puntland oo sanadkii hore koobka regional in ka guuleystay waa mahadsan saaxiibkii soo waxa uu sheegay ciyaaruhuna sideedaba yasid ma lahan مثلا waxaan soo qaadanayaa ciyaar xalay dhacday division 3 koox ah ya xalay Manchester xasay u galayso ujeeday Carling Cup wiilasha soo ciyaareen intana waxa dhiilay dad qaran ah aad oo caalamka magac sumcad ku lahaa xalayna meesha la dhigo ujeeday sideedaba kubaddu ma lahan xal oran jiray wax la yiraahdo yasid Puntland sanadka hore waan is aragnay kubad waxaan dhiilay aad iyo aad banaadir u soo dhaweeyeen
sababtoo ah sideedaba suu walaalkii sheegay labada kooxood hadday kubad yaqaaniin qaladkoodana wuu yaraana kubadda nadiifna waa la dheelaa marka injirka iyo waxaasna aad bay u yaraanayaan laakiin sanadkani Puntland markaan taabto sanadkii hore iyo sanadkan waxaad moodaa inay waxoogaa ay luudayaan sababta waxaan u leeyahay waxa weeye sanadkii hore waxay wateen garbooyin yaacaya qad dhaxa isku xiran oo isku seef garaysan difaac level ah sanadkan waxaa moodaa marka waxoogaa inay yihiin inay jiitamayaan laakiin xirfadooda ay wataan xirfadooda ayay wataan markaan soo qaato ciyaartii u dambeysay hadda ay dheelayeen gobolka banaadir laba qofooda wax ka maqnaa oo muhiim ah cabdimajid iyo maxamed Puntland waxaan filayaa waxba kama maqneen kabtan Didiye maqnaa hal one person waxba ma sheegayo inkastoo nin libaax uu ahaa Didiye haddana waa la joogaa qadka dhax wax iskama bedelin difaacna wax iskama bedelin laakiin garbihii waxbaa iska bedelay sanadkan sababtoo garbaha waxaan ku naqaanaa Puntland dad yaacayo oo aan daalaynin oo any time oo socdo oo gooshu laga celinayo laakiin sanadkan waxaa moodaa in qadka dhaxa uu xiran yahay bis waxaa ku soo haatay Jubbaland sanadkii hore ma isdheheeninba hataa waxay imaanaysaa semifinal xaqiiqda markaan kaaga sheekeeyo qaabka lagu soo baxay iyo qaabkay meesha u yimaadeen way kala fogeen laakiin sanadkani qeyr Allah siiyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam juhdi badan buu geliyay dhaqaale aan caadi ahayn buu geliyay 6 bilood ilaa 4 bilood bay ku xareysnaayeen intii markii la saadaaliyay in la qabanayaba way xareysnaayeen wasaaradda dhalinyarada sports qeyr Allah ayagana waxay sameeyeen isku xirkii iyo marka sanadkani uu ka duwan yahay sanadkii hore Puntland way ka horeysay maamul goboleedyada dowladnimada intii burburka lagu jiray iyada waxay ahayd dowlad rasmi haysatay waxayna haysatay ciyaartooy oo gobolada ka yaacay ciyaartooydii hore u joogtana waxay khibrad heleen tartan ciyaar gobolada lagu qabtay meesha 2016kii macnaha waxay haystaan khibrado kala duwan isdhexgal fara badan bay sameeyeen intii burburka lagu jiray isdhexdeysanaay ayagu way deynayeen xareeday cabaayeen laakiin hadda sanadkan waa isku soo baxan waa markii labaad nasiibkuna waa meeshiisa koobka laakiin labadana waa wada rabnaa waayahay waa la arki doonaa daawadayaal haddii aan fiirino qaabka labadan koox usoo baxeen iyo qaabka loo ciyaaray gruubyada kulankii koowaad waxaa wada ciyaaray martigilaasha gobolka banaadir oo soo dhaweeyey kooxda Jubbaland 8 bishan December 2017 kulankaas wuxuu ku dhamaaday 2 gool iyo 1 oo ay guush raacday wiilasha kooxda kubadda cagta gobolka banaadir kulankii labaad waxaa wada ciyaaray kooxaha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle 1 gool iyo 0 ayaa waxay guush raacday wiilasha kooxda kubadda cagta Koonfur Galbeed kulankii saddexaad waxaa wada dheeray gobolka banaadir oo soo dhaweeyey kooxda kubadda cagta galmudug 11 December ciyaartaasna waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 0 oo ay guush raacday wiilasha gobolka banaadir kulankii afraad waxaa wada ciyaaray kooxaha Puntland iyo soo kale kooxda kubadda cagta Hirshabelle kulankaasna wuxuu ku dhamaaday 3 gool iyo 3 wareega afardhamaadka semifinalka waxaa usoo gudbay kooxda kubadda cagta Koonfur Galbeed Jubbaland iyo soo kale kooxda kubadda cagta Puntland iyo kooxda kubadda cagta gobolka banaadir kulankii koowaad wuxuu dhexmaray kooxaha kubadda cagta gobolka banaadir iyo soo kale kooxda kubadda cagta Puntland ciyaartaasna waxay ku dhamaatay 1 gool iyo 0 oo ay guush raacday wiilasha kooxda kubadda cagta Puntland oo ay goolka ugu mahadcelinayaan laacib Yacquub Cusmaan Maxamuud kulankii lixaad mise kulankii labaad iyo afardhamaadkana waxaa fooda isdaray kooxaha kubadda cagta Jubbaland iyo soo kale kooxda kubadda cagta Koonfur Galbeed waxayna ahayd ciyaar aad u xiiso badan waxaana ay ku dhamaatay 2 gool iyo 0 oo ay guush raacday wiilasha kooxda kubadda cagta Jubbaland waxaana labada gool ay ugu mahadcelinayaan laacibka lagu magacaabo Muuse Cabdiraxiin oo weerarka uga ciyaaray isagoo hadda hogaaminaya goolinta ciyaaraha maamul goboleedyada iyo soo kale gobolka banaadir Mustafa marka fiirso qaabka hadda natiijooyinka aan akhrinay sida kooxaha u soo kala baxeen iyo aragtidaada tartanka guud xaqiiqdii marka aan fiirsho kooxaha ciyaarahan ka soo qayb galay Jubbaland iyo Puntland hal mid kaga duwan yihiin anagoo soconaa istiidadii ka nimi laakiin kuwa kale waxaan filaynaa gobolka banaadir ciyaartooyda seerbiyeeda inay ay ku jireen taasina muhiimadii laga lahaa koobka wax badan ka maqnaanaya waayo waxa laga rabaa wiilka istiidka jooga oo mabacad ku ciyaaraya inuu fursad u helo istiidkiisa inuu safto shaashadahana laga arko marka kulay xiriir kubadda cagta Soomaaliya wasaaradda dhalinyarada federaalka oo barnaamijka iyo waliirka in ay heer hoose ku soo daraan in qof walba gobolkiisa uu ka yimaado laga keeno si loo helo ciyaartooy gobolka banaadir marka wuxuu helayaa ciyaartooy ma garanaysaa wanaagsan oo aan laga kaxaysan karin marka cid u fiican waxaa dhigay ciyaartooy khatar in dhaqaale uu raaco oo ka tago marka taasi waxay adkeynaysaa
gobol walba inuu si wanaagsan isu soo diyaarto ciyaartooygii joogayna oo fursad u helo markaan fiirsho group stage-ka si loogu soo kala baxay Puntland annaga xaqiiqdii markii hore gobolada aan ku dhacnay gobol walba wuu soo dilayay 4 bilood 6 bilood waxbaa la xariisnaa cid walbana way ku soo talagashay inay koobkan ay hantido laakiin wax walba natiijo iyo calafeeye groupkii aan ku jirnay annaga waxaan dareemaynay in ay aad u adkaayeen ciyaartooy la soo diyaarshay macallimiin khibrad wadato laakiin farsamadii hoose oo kubaddi haddii kubadda labada kooxood ay kubad cira dheelaan waxa dhacay awoodoodu isma dhaamayso laakiin kubadda haddii ay tahay kubadda isu dhiibashaa kooxdaasi guul way keeni kartaa marka groupka aan ka soo baxnay dadku ay ciyaartii hore Puntland arkeen waxay dareemeen in Puntland wax badan ay iska dhimeen social media ay haysatay haddana kooxdu markay khibrad leedahay macallimiin khibrad wataan daldalool kastoo yimaada waa la daboolayaa khibradooda iyo farsamadooda oo ku soconaya kooxduna waxa weeye isku xirkeeda iyo isu dhibashadeeda mar kasta Puntland kubaddeeda isku mid bay ahayd isu dhibashada waxaana dareemaysaa 10 daqiiqo ugu horeysay inaan 2 gool lahayn ciyaartii Hirshabelle laakiin difaacyadii garabka saarnaa ay dhaawac u soo gaaray kooxda Jubbaland xaqiiqdii kulankeeda hore waa laga badiyay waxaan dareemaynaa kubad ahaan in iyaga fiicnaayeen haddana waa laga badiyay saaxiibkii wuxuu soo sheegay in mataqaanaa banaadir ay ka maqnaayeen laba halbowl ciyaartooy oo aad u sareeya xaqiiqdii anaa xubno badan baa naga maqnaa oo aad badan oo miisaan ku leh kubadda cagta Soomaaliya DD oo kale Seygi Saciid Sabri Faarax Koolo kale guuleed oo kale marka waxaan dareemaynaa kooxdu marka ay ciyaartooy halbowlayaal ka maqan yihiin inay boos bedelkoodii haysato laakiin waxaan dareemaynaa kooxda gobolka Banaadir inay dhalinyaradu banaayo dhalinyaro cusub oo khibrad badan ahayn marka dhalinyarada Puntland ka socoteena waxay ciyaaro gobolay soo dheeleen shacab badan baa ku qeylin jiray qaylada gobolka Banaadirna waxa meensay yeelay sanadkii la soo dhaafay ciyaarahan waxa ku qaadeen ambitin mis idin goolin ka badan kulna xataa sanadkan saas ma sameyn kartaa xaqiiqdii kulay finalkan taaganay waliina kama soo badin kii horena kama badin laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in ciyaarahan nabadgelyo ku dhamaadaan ummadda Soomaaliyeedna aragto muraayadii Soomaaliya iyo albaabka Soomaaliya in Soomaaliya isugu iman karo ciyaar wanaagsan lagu qaban karo marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga mahadcelinayaa halka madaxweynaha dawladda Puntland iyo dawladda Puntland oo door weyn ku lahayd diyaarintii iyo qabanqaabadii iyo xirayntii xulka kubadda cagta Puntland aadan marka fiirso Jubbaland sanadka hore kulankood waa laga badiyay haddana sidoo kale waa laga badiyay laakiin finalka labada sano way soo gaartay maxaa is leedahay halkaas maxaa ka khaldana inkastoo kooxda hadda uu hogaaminayo macallin Abdulqaadir Maxamed Qalindi aad u mahadsan tahay waa runta sanadka hore waa laga badiyay sida hadda ay ku soo baxday Puntland oo kale ayaan sanadka hore ku soo baxnay sababtoo ah markii laga badiyay timekii hore timekii labaadna koox laga soo badiyay ya anagana mar labaad ka badinay marka isla markii waa semi final baa imaanay sanadkan marka in ciyaartii u horeysay aan la yeelanay Banaadir waa la socotaa in waan ka fiicneen tacticalka iyo dhan weerarka dhan walba waa ka fiicneen laakiin xagga technicalka iyo farsamada yaad moodaa inuu macalinka uu qalday bedelka iyo leecabka marka taasna waxay noo sahashay inaan saxno qaladaadkii ciyaartii labaad oo aan wacdar ka muujinay garoonka oo ciyaar qiimo badan aan soo bandhignay sidana ciyaarta hadii shaxda ay ka halawdo sida wax u rabto ma helaysid marka in ciyaaruhu sanadkan waxa moodaa in ay sidii Puntland hadda sanadkii hore u cadeed aysan macnaha sanadkan aysan dhibcihi ay ku filaneysay laakiin final way joogtaa muhiimadda mana laga badan laakiin laba gool waxay haysataa laba ciyaar ay gashay barbarac wayna ku soo baxday marka waxaan filaynaa insha Allah ciyaaruhu ma ahan ciyaarihii hore way ka duwan yihiin waxaan halkan aan ka xusayaa taageerayaasha reer Jubbaland oo meel walba ay joogaan oo in mar walba garab taagan dal iyo dibadba ay mahad balaaran halkan uga soo jeedinayaan inay dadaalkooda sii wadaan ciyaartuna waa sideeda waa nasiib Puntland iyo Jubbaland laba kooxood waxa wax xirfad leh kubaddoodu nadiif tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inay si nabad ku dhamaan doonto daawad Allah waxaan daawanaysaan weli Goobjoog TV gaar ahaan barnaamijka xindaabka ciyaaraha tan iyo markii ay bilowdeen ciyaarahan waxaa la bixiyay hal karo casaan waxaana qaadatay kooxda kubadda cagta Galmudug waxaana qaatay ciyaaryahan Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq oo number 6 u xirta kooxda kubadda cagta Galmudug isagoo qaatay kulankii ay kooxiisa guuldaro kala kulantay gobolka Banaadir intii ay socdeen ciyaarahan kaliya waxaa la dhaliyay hal gool oo laadka tooska mise waxa loo yaqaan free kick waxaana sidoo kale dhaliyay laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Galmudug ciyaaryahan Cadnaan Xirsi Kaahin isagoo ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Jubbaland
kulan ay kooxdiisa galmudug 2 gool iyo 1 lagu badiyay haddii aan fiirno goolalinta top scoreka ciyaaraha hadda waxaa hogaaminaya laacibka lagu magacaabo Muuse Cabdiraxiin Maxamed oo nambarka 9 u xirta kooxda kubadda cagta ee Jubbaland kaalinta labaad waxaa ku jira Cabdimajid Ismail Ibrahim oo nambarka 9 u xirta gobolka Banaadir iyo Maxamuud Maxamed Jaamac oo isagana ka tirsan xulka kubadda cagta Puntland oo 2 gool leh iyo Maxamed Usmaan Abuukar oo ah dhaliyay goolka koowaad ciyaaraha maamul goboleedyada oo ka tirsan kooxda kubadda cagta gobolka Banaadir iyo Cabdirasaaq Axmed Maxamed oo nambarka 10 u xirta kooxda kubadda cagta Hirshabelle isagoo leh 2 gool hadda shantaas ciyaartoy ayaa ugu sareysa marka la fiiriyo goolalinta ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxaana horkacaya laacib Muuse Cabdiraxiin Maxamed oo hal kulan nasiib u yeeshay haddii uu gool dhaliyo isaga ayaa ku sii guuleysan doona laakiin haddii laacibinta lagu magacaabo Maxamuud Jaamac oo ka tirsan Puntland uu gool dhaliyo waxay noqonaysaa in labadooda si wada jir ay ku guuleystaan Mustafa marka fiiriso mar walba waxa soo dhistaan ciyaartoy weerar ku fiican sanadkii la soo dhaafay idanka iyo gobolka Banaadir ay ku guuleystay goolalinta ciyaarahan sanadkan maxaa dhanka weerarka kooxda ka bedelay gool dhalinta dee waa wax qoran waxa way laacibay saacidaysaa fursado badan uu helay goolasho ugu dhalanaya waxaan dareemaynaa hadda ciyaartii aan la dheelaynay gobolka Banaadir in attack badan uu jiray fursadaha goolasho ay yarayaan aan filaynay marka kubad ahaan la yiraahdo qaybta hore gool baan lagu kala wareego laakiin mar haddii qoran tahay in qofka aan waxba u dhalanin meeshiisa joogay waxaan filayaa in gool dhalinta 3 gool lagu hogaaminayaa aan qiyaasayo Puntland waxaan filayaa injineerka iyo Yaquuba 2 gool leh oo ciyaartoyda goolashay kala dhaliyeen marka waxaan filayaa kulli final baa la joogaa kulli finalkaas lagu kala bixi doonaa waxaan filayaa in Jubbaland way rabtaa Puntland way rabtaa marka kulli waxaan filayaa weerarada iyaduna xaqiiqdii dareemka goolasha ay dhalinayaan inay farsamo weyn ku jirto aadan sanadkan haddii lacala koobka weysaan malayaabo Muuse inuu ku guuleysto goolalinta inkastoo aan ognahay 2 kun u dambeysay bandhig wanaagsan inuu garoonka soo bandhigay xirfad sareys walahi goolalintu waa nin walba noobaha xirfadu ciyaaro technicationka positionka uu ka ciyaaro iyo ku xiran tahay haddii laakiin aan la raadinayno kubadda gool ma helayo noobuhu waxa weeye kubadda lugtiisa loo soo geliyaa sideedaba positionka uu dheelayo ku xiran tahay hadduu noobuhu position la'aan uu yahay ma helayo kubad oo meel mar walba meeshii looga dhiibi lahaa uu meel kale ku waxaysan yahay marka noobuhu asaga laga rabaa dadaalka inuu gool raadiyo sababtoo ah number 9 buu sitaa isaga iyo ninka la yiraahdo difaaca way isku qataarihiin marka waxa laga rabaa noobuhu inuu la yimaado isaga xirfadeeda hadduu xirfadeeda la imaan waayo gool ma helayaan filaya Muuse sanadka hore uu ciyaarayay iyo sanadkan different u dhaxeeya waxaan filayaa markaas intii waayay aragno fara badan oo soo qaatay sanadka soo ciyaarayay iyo sanadkan inay kala duwan yihiin waxaan filayaa macnaheedu inuu ka dhisay qaabka in loo istaago positionka hadda markaan fiiriyo ciyaarihii maalgoleed socdeen positionka waxa uu haystaa ninka gobolka Banaadir noobaha uu ciyaaray Cabdimajid sababtoo ah ninkaasi qaabka uu istaagayo qaabka caalamiga noobayaasha uu istaagaan wali lama hayo ilaa hadda marka waxaan dhihi lahaa noobayaashu waa inay helaan position loogu hagaago oo loo qaato sababtoo noobuhu kubadda waa loo dhiibtaa wuu dhiibtaa laakiin nooba banoni la ordayo oo macnaha uu qataata gelinayo caalamka kama jiro marka waxaan leeyahay Muuse sanadkan wax weyn buu iska bedelay daawad yaal wiil waxa daawaneysaan Goobjoog TV waan u mahadcelinaynaa saaxiibadana la socda baraha bulshada gaar ahaan Facebook iyo YouTube-ka waan tixgelin doonaa aragtidiina iyo cidda qaadaysa koobka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ciyaarta kama dambaysta wada dheeli doonaan kooxaha kubadda cagta Jubbaland iyo soo kale kooxda kubadda cagta ee Puntland kooxahan hadda soo gaaray finalka ayaan booqanay tababarkooda waxaan la hadalnay qaar ka mid ah ciyaartoyda macallimiinta sida arkaan in sanadkii labaad u xiriir ay soo gaaraan finalka kubadda horta waa cadi madow adoo laga fiican yahay laga badin karaa adoo fiicanna waa badin kartaa ciyaartoyda kooxaha Puntland iyo Jubbaland ee u soo baxay kama dambaysta tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir balse ka hor kulan ciyaareedkooda ay qaateen tababar sare gargarowga iyaguna aad iyo aad buu sareeyaa insha Allah waxaan anagu doonayaa inaan ka gudbo waana ka gudbaya ilaahay dankiisa sababtoo ah quality-ga iyo teamka not same ciyaartoydoodu dardaaran iyo fariinba way qabaan waxaan wixii aan fari lahaa waan faray waxay qaban lahaayeen nin walba uu garanaya ciyaartoydaydu waxay soo bandhigaan insha Allah Soomaaliya oo dhan waa arki doontaa hadii Allah idin waxaan booqanay tababarka labada koox iyo sidii ugu diyaar garoobeen ka hor kama dambaysta ciyaaraha maamul goboleedyada waxaan la hadalnay qaar ka mid ah ciyaartoyda labada dhinac iyo dareenkooda ku aadan in sanadkii labaad oo xiriir ay gaaraan finalka tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir
laba nin kama wada qosliso insha Allah ayrinteena ku kalsoonahay macallimiinteena ku kalsoonahay iyo maamulkeena iyo awoodeena inta la agtahay waa dareemi karaa taageerayaasha ku sugan gobolka Banaadir iyo taageerayaasheeda dal iyo dibadba inta maqan waxaan u baaq u dirayaa inay mar walba niyadda nagala socdaan niyadda inaga taageeraan insha Allah guul way imaanaysaa mar walba niyadda la iska taageero tababar badan soo qaadanay juhdi badan nagu bixiyay tababarkeena aad buu u fiicnaa macallimiin wanaagsan oo soo tababaray insha Allah tababarkaasna waxaan rajaynaynaa natiijadiisa inay guul noqoto rajaynaynaa insha Allah haddaan nahay reer Jubbaland sanadka hore fiinana nagala qaaday Puntland penalty laakiin sanadkan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan koobka inta kala tagno magaalada Kismaayo geeyno insha Allah haduu Ilaahay raad caasimada ku meel gaarka Jubbaland ugu weyn wuxuu yahay inaan si wada jir ah koobka aan u hanano haduu Ilaahay insha Allah sidoo kale waxaan salaamayaa taageerayaasha Jubbaland oo ahaantii waqti walba isku hoolan isku dhiirgelinayo inay muujiyaan shucuurtooda iyo dareenkooda aad ugu mahadcelinayaa taayadana sanadka hore saan oo kale markaa imaanay geemka ugu horeeyay waa laga badiyay finaal tagnay hadana gaar ahaan ciyaartoyda Jubbaland way ku qasbayeen geem adag ay dheelayaan kulan adag ay leeyihiin inay banooniga ay wax ka bedelaan ay ku soo kordhiyaan sameeyay dadaalo wacan sidaad arkayseen waxaan soo istaagnay kama dambaysta koobka gobolada Soomaaliya waxaan sameeynay dadaalo badan fara badan ciyaartoyda waxaan leeyahay dadaal wacan aan leeyahay dhamaantiina dadka imaaday gobolada iyo gobolka Banaadirba muhiimada loo qabanayo sportskan iyo isdhexgalkan waxa waay in dhalinyarta isku bartaan daawadayaal sida arkayseen waa ciyaartoyda kooxaha Jubbaland iyo soo kale kooxda kubadda cagta Puntland oo si weyn iskugu diyaariyay koronkooda finalka ay ku hardami doonaan garoonka Banaadir Stadium ee degmada Cabdulcasiis qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir waxay soo dhaweeyeen kulanka adag ee dhexmari doona kooxaha kubadda cagta Jubbaland iyagoo saadaaliyay kooxda qaadis aan daawano aragtidooda kubadda horta waa cadi madow adoo laga fiican yahay laga badin karaa adoo fiicanna waa badin kartaa labadaas arrimood waaye laakiin waxaan isleeyahay aniga maanta Jubbaland horta laga maarmaan karo waa koox weyn oo quwad loo soo diyaariday laakiin waxaan qiyaasaa in ay ku guuleysan doonto Puntland awoodna ay ku badi doonto aaminsan aniga ciyaarta finaalka ciyaar aad u adag waaye Jubbaland iyo Puntland macnaha ii sheeg waa markii labaad ay imaanayaan maamul goboleedyada ay final imaanayaan labadooda maxaa la ii sheeg inkastoo anaka aan taageerin gobolka Banaadir iyo macallin Saalax Faarax iyo ciyaartoydiisa balse ma dhicin inay final imaadaan laakiin maxaa la ii sheeg insha Allah taala waxaan u rajeynaa koobka Jubbaland aan u rajeynaa Jubbalandna taageersanaa qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo ka aragti dhiibanaya kulanka kama dambaysta ciyaaraha maamul goboleedyada iyo kooxda qaaday lahayd maadaama Jubbaland iyo kooxda Puntland ay ciyaarayaan finalka Mustafa marka fiiriso kooxdiina si u diyaar garowday iyo shaxda macnaciiro wax ka maqan hadii jiraan kooxdooda way diyaar garowday diyaar garowna hore u soo sameysay kaliya in kulankaasi insha Allah berito la u dhaco si nabadgelyo ku dhaco kale kooxda shaxdeeda iyo xaaladaheeda macalinka ay iska leh markaan wax rajeynaa kulankaasi inuu noqdo kulan qiimo badan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan ay aad u soo dhaweeyaan ilaahayna uu nabadgelyo nagu dhameeyo nabadgelyana ay isteedol badad gobolkiisii ay ku laabtaan ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan mar labaad iyo mar saddexaad TV-ga Coach Joe iyo dhammaan saxaafadda ka howlgasha Muqdisho oo bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogta ka hor ugu mahadceliyo shacabka reer Puntland oo dal iyo dibad jooga iyo taageerayaasha Puntland iyagana waxaan leeyahay aan sida noola soo xiriiraan iyo sida talooyinka noo soo saameynaysa celinaya waxaan rabaa halkan inaan si gaar ah uga xuso jaaliyadda Melbourne oo kooxdii ay ka timi Melbourne ka timi oo Muqdisho soo madhay soona martay Puntland gobolka bari ka soo ciyaartay gobolka Karkar ka soo ciyaartay nugaal ka soo ciyaartay Garowe ka bacdi xagga ay Somaliland u gudubtay xaqiiqda jaaliyadaas sanadkii horena noo timi oo aan tartan jiroonay ugu qabanay caasimadda Puntland ee Garowe waxaan uga mahadcelinaa jaaliyadaas Soomaaliyeed sida ay isugu xiran tahay oo xaalad kasta uga qayb qaataan annaga lafteeda ay xulka Puntland soo gaarsiiyeen qalab dhameystiran jaaliyadda Melbourne waan uga mahadcelinaa taasina waxa keenay soo dhawaantii 2016 noo yimaadeen isdhexgalkii iyo dad wanaagsan oo hogaaminaya oo garan kara aan dareemi karo dad ku soo dhiiraday dalkoodii oo aan inna fangarin walba tigirkiisa la soo baxayo markii Ali Xuseen oo ragga hogaaminaya kamid ah oo uga mahadcelinaa
waxaana leenahay waa ku mahadsantihiin alaabtana soo aragtidaada marka soo koobto ciyaarta maxay ku dhamaan kartaa sanadkan ma difaacan kartaan koobka wallahi horta ciyaaraha waa la saadaaliya kolley dadka oo daraska ku wanaagsan waa nahay kolley qof walba dee tiisa buu jecel inuu sheego horta qof oran kara intaas ku badan laakiin saadaalin inay saadaash intaa ku dhamaanaysa haqiiqdii kulankaasi kulan buu adag buu noqonayaa 90 daqiiqana leesma dhaafayo marka fiirso aadan sanka diyaar garowga kooxda macna qalinta safkiisa hadii ciyaartoy ka maqan yihiin iyo wax la filan karo aad baa u mahadsan tahay diyaar garowga horta uu jiray marka hore waxa lagu soo gaaray heerkan finalkan waa diyaar garow iyo isku tashi waxaan filayaa insha Allah wixii technical ah iyo wixii aqoon ah ciyaartoydu macalinka ay ku xiran tahay isaga yaqaana laakiin tan diyaar garowgu ciyaartoydu way diyaarsan yihiin waxaan rajaynayaa insha Allah in ciyaartaasi si fiican ay uga qayb qaataan si wanaagsan Ilaahay noogu dhameeyo mid xigta taawashaysiga iyo diyaar garowguna sideedaba uu ku soo tashataa kooxuhu ku soo tashtaan inay meel fiican ka gaaraan oo ku soo tashtaan macalinkuna isagana shaxdiisu waa u gaar maxaa isleedahay koobka sanadkii labaad ma qaadi kartaan mise natiijadana maxay ku dhamaan kartaan wallahi saadaashu nin walbaba kolkuu garoonka galo unbuu saadaalin karaa meesha ay bahashu ay u socoto laakiin caalamku waa la saadaaliyaa labada kooxood oo beri dhacaya maxay ku dhamaan kartaa sidee noqojoygu soo noqon karaa waa la saadaaliyaa laakiin anigu hadda kama hor dhacay Puntland waa naadi koobka haysta sanadka hore Jubbaland waa kii laga qaaday marka waxaan rajaynayaa insha Allah calafku uu qoran yahay aad ay u mahadsan Mustafa iyo soo kale aadan sanka baraha bulshada si weyn ayaa loogu garfeeyay sanadkii labaad xiriir inay soo gaaraan kooxaha kubadda cagta Jubbaland iyo soo kale kooxda kubadda cagta Puntland sawir uu sameeyay farshaxanistaha Min Artist ayaa waxaa lagu soo sawiray Puntland oo koobka haysta iyo kooxda Jubbaland oo geeska kala taagan waxaana lagu qoray sida kubadda cagta loo ciyaaro waxaa kale oo hoos la dhahayay kooxaha Koonfur Galbeed Hirshabeelle galmudug iyo soo kale kooxda kubadda cagta gobolka Banaadir iyagana waxaa la lahay war sheekada joojiya casharada dhageysta oo lala jeedo qab ciyaareedka kooxaha kubadda cagta Puntland iyo soo kale kooxda kubadda cagta Jubbaland wala arki doonaa kooxda loo caleeyay saar lahaa ciyaaraha kubadda cagta maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo hadda finalkiisa ay joogaan kooxaha Puntland iyo soo kale kooxda kubadda cagta Jubbaland oo sanadkii labaad oo xiriir ay soo gaareen guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal waad ku mahadsantihiin waqtigeena qiimaha badan aad ku daawateen barnaamijka xindaabka sportska toddobaadkan barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Abdiraxmaan Majacase iyo soo kale gudoomiyaha sportska Jubbada Hoose aadan sanka waad mahadsantihiin waqtigeena qaaliga intaan kulmi doono toddobaadka idma nabadgelyo